Diyaaradan ayaa waxaa la sheegay inay ka timid waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta, isla markaana lacagta saarnay diyaaradaasi ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta. Saraakiisha diyaaradaha garoonka aadan cadde ka howlgasha ayaa qaarkooda la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in lacagtaasi loo waday deegaanada maamulka Puntland, isla markaana la doonayo in la siiyo ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo dowladda Imaaraadku ay mushaar siiso. Weli ma cadda in diyaaradda la sii daayo in kale, waxa ayna ku soo aadaysaa xilli khilaafka u dhexeeya guddoonka golaha shacabka uu sii xogeysanayo, waxaana jira shaki ka dhashay lacagtaasi, walow markii dambe la ogaaday in loo waday ciidamada ka tirsan maamulka Puntland, iyadoo dadka qaarna ay leeyihiin lacagtaasi in bismillaahi raxmaani raxiim. duhur wanaagsan dhegaystayaal. qodobada wararka shabeellideedsana waxaa ka mid ah guddoonka golaha shacabka oo xildhibaanada ku wargeliyey in maalinta beritaha ay yeelan doonaan kulan looga hadlayo mooshinka guddoomiye Jawaari. xiisad xooggan oo ka dhalatay dil ganacsade loo geystay oo maanta ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. maamulka Galmudug oo ka hadlay ciidamada Itoobiya ee iskaga baxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. taliyaal cusub oo dhalinyaro ah oo loo magacaabay xarunta ilaalada madaxtooyada ee Villa Soomaaliya oo maanta si rasmi ah ula wareegeen xilkooda. dhaqdhaqaaqii duulimaadyada ee la boorka magaalada Beledweyne oo maanta hakad ku yimid kadib roobab ka dhacay magaaladaasi. xubnaha aqalka sare oo ka hadleen sababta u baaqday kulan maanta su'aalo lagu weydiin lahaa wasiirka dastuurka Soomaaliya. guddiga doorashada madaxa bannaan oo maanta aqoonsaday xisbiyo hor leh oo ka mid noqonaya xisbiyada dalka. dowladda Canada oo loogu baaqay inay wax ka qabato dilalka dadka Soomaalida loogu geysto dalkaasi. wararka dibadda shabeelle duurnimada eedeysana waxaa ka mid ah dadweynaha reer Hungary oo maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka dalkaas iyo weliba booliska Jarmalka oo baaraya weerar gaari loo adeegsaday oo ka dhacay dalkaasi. waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha abriil 2018. warkaas oo dhanna waxaa la diyaara farxiya ziyaad maxamuud. aad baad u mahadsan tahay guuleed cumar xasan. bismillaahi raxmaani raxiim. duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii oo dhan. guddoonka golaha shacabka ayaa xildhibaanada ku wargeliyey in maalinta berita ay yeelan doonaan kulan looga doodayo mooshinka guddoomiye Jawaari. maxamed axmed jimcaale ayaa warkan eegaya. kadib fariin kooban oo loo diray dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo nuqul ka mid ah shabakada warbaahinta Shabeelle ay heshay, ayaa kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude waxa uu ku wargeliyey dhammaan xubnaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya in maalinta beri oo Isniin ay ku beegan tahay taariikhduna tahay 9 bisha abriil sanadka 2018 saacadda 9 subaxnimo la qaban doono oo kulanka guud ee golaha shacabka ajandihiisuna yahay mooshinka kalsooni kala noqoshada guddoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. tallaabadan ayaa ka dambeysay xilli saacadii la soo dhaafay kulamo gaargaar ah ay ka soconayeen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qaarkood ay yeesheen guddi guddoomiye Jawaari uu saaray xalinta khilaafaadka kala dhaxeeya xubnaha ka tirsan baarlamaanka ee doonaya in ay kalsoonida kala noqdaan. guddigaasi ayaa waxaa kulamo ay la qaadanayeen madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo wararka qaar ay sheegayeen in guddoomiye Jawaari qudhiisa ay wada kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana kulamadaasi ay u muuqdaan kuwo fashil kusoo gabagaboobay maadaama weli aan xal laga gaarin khilaafka u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka, isla markaana maalinta beri mar kale la qorsheynayo in codka kalsoonida loo qaado mooshinka laga gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. xiisad xooggan oo ka dhalatay dil ganacsade loogu geystay maanta magaalada Laascaanood ayaa waxa ay ka taagan tahay halkaasi. xiisadani ayaa waxa ay ka dhalatay dil maanta loogu geystay nin ganacsade ahaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. ganacsadaha la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Timir, kaasoo si weyn looga yaqaanay magaaladaasi, waxaana la sheegay in dilkiisa uu la xiriiro aanooyin qabiil. maleeshiyaad hubeysan oo
kasoo jeeda marxuumka ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasoo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen inay wadaan dadaalo lagu xalinayo xiisadani ka soo cusboonaatay magaalada Laascaanood iyagoona sheegay inay ku daba joogaan ruuxii dilka u geystay ganacsadahaasi xaalad kacsanaan ayaa ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoona dadka deegaanka ay ka baqlin qabaan in dagaal uu ka dhaco halkaasi maamulka Galmudug ayaa ka hadlay ciidamada Itoobiya ee isaga baxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Cali Xasan Barkhadle Cali Gaab ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay faahfaahin dheeriya ah ka bixisay ka bixitaanka ciidamada dalka Itoobiya ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo ay baneeyeen saddex ay ku sugnaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ahna kusimaha wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Mahad Xasan Maxamed oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa faahfaahin dheeriya waxa uu ka baxshay ka bixitaanka ciidamada dalka Itoobiya ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb iyo waxyaabaha ay salka ku hayso isagoona sheegay in ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay durbadiiba la wareegeen saldhigyadii iyo goobihii ay ka guureen ciidamada dalka Itoobiya ee magaalada Dhuusamareeb ciidamada Itoobiya waa aad yaashiin oo magaalada muddo badan bay Dhuusamareeb joogeen kamid ahay ciidamada difaaca ee Dhuusamareeb hadda intii Galmudug midoobeyna markii ogaaneen Galmudug iyo awooddoodii ay wax taagan yihiin waxay go'aansadeen in boosashino kale oo bannaan ay buuxiyaan Galmudugna ay isku filan tahay oo ay buuxin karto booskaas ayagoo arkay kadib waxay sameeyeen inay ka guuraan anaguna booskaasi wax iyooma naaran hadda meesha deganaayen ciidamada degay oo ciidankii maamulka Galmudug ah sida ay yidhaahdo boosashinoodii noo buuxin jirayna waan kaban karnaayo hadda midowey oo wuxuu keenayaa isku duubni ciidan iyo isu kalsoonaan ciidankii isku kalsoon yahay hadalkani ka soo yeeray wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa imaanaya xilli ciidamada dalka Itoobiya ay baneeyeen fariisimo waaweyn oo ay ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Cali